حلي عمر بن الخطاب مدحda muslimiinta waxa ayaa nin baa bukooda la yiri markaas la wiil Umar oo kale ninkii quraanku akhri ninkii waa tago Umar waa u tago ninkii suurad qaaf ku akhri qaaf wal quraan wala quraan al majid ninkii ilaahay baa caafimaadiyay waa ka kacay cudurkii Umar waa la dilo waa la ofsado Umar waa dhintay in yar kadib xilli zaman kadib ayaa waxa bukooday isla ninkii baa bukooday markaas waxa loo yeeray wadaadka quraan saara markaas loo yeeray war bari hore Umar baa qaaf saaray bal qaaf ku akhri qaafkii buu haleelaha ka galay ninkii waa dhaqaaqi waay markaas la yiraahdo maxaa dhacay hada qaaf waa qaafuna maxay bedelay ninkii quraanka akhriyay wadaadkii baa war qaaftu waa qaaftii uune ayna qalbu Umar buu qalbigii Umar uu qaaf soo dhixmarayay aaway buu qalbigii Umar deeranaa ee qaaf garanayay wuxuu yahay aaway buu halka waa ka quraanku meelaha idin saaran halka buu saarnaanaya ilaa yawm alqiyaamah wala shay xaraf lagu dari maayo xaraf laga nusqaamin maayo bal masaajida loo qurxiyay baa loo qurxinaya heer waxa la gaaray muslimiintu taariikhda waxay gaareen quraanka khadka madoobe ku qoran inay dahab ku qoran dahab intay dahab soo iibiyaan oo miilaan oo sida khadka uu qulqulo ayaa la gaaray masaaxifta quraanka in dahab lagu qoro dahab hal hada muxuu ziyaada marka quraan kitaabka ilaahay baa lagu qoraya مساجد ولا حرب جي ساسو كله قرحستا اسو كله ها بل meelaha manaabirta masaajida waxa jira illa imika iyo wadanada muslimiinta illa kiila dahab lagu nabo masaajida kiila dahab qolada tabliiq baxbalay masaajid bas ka tageen wadanka ay idin sheegayeen wadanada kamida markaas ay doon habeenkii waa iska seexseexdeen masaajidka iska seexseexdaan cishii markuu dhamaaday baa leeyahay maxaad qabanaysaa hawl baan u leenahay مقامي أي هؤلاء هذا وسبع أو بحنا برا بحنا أيوه كوح بان كسوينا هالكانوا ها مكان سالي المساجد بس يا حنزان بيت الله ما نوع ما يويه وحنا ذي كدم بين من أركض كيلياش انتهى بكل مساجد كنا النبض أي هلا ذي كيل قال يا ملي مركا كتاب القرآن كأواد ذهب كقرتيت مساجد أواد كيليال ذهب أواد كنا نجسد ها قلبي وحي النبي محمد مره بمدقاجني صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري واحد يكون لا حديث عجب بدر والنبي وصحابه ومساجد النبي الله شاكينا صلى الله عليه وسلم روب داي هبينكي مساجدك سقف وين وفي عن ملهين روب كيبا مساجدك كداي قروروخي مساجدك با ودا قويي ولا سو غلي نبي وددكي وا توكي صلى الله عليه وسلم قروروخي بو كتوكي يا دوبدي soo jeestay soo salaam naqsaday saxaabadii Anas wuxuu ina leeyahay waxaan arkay nabi maxamed oo dhooba iyo quruurux ay foodiisu ka daayso sallallahu alayhi wa sallam meeshii uu ku tukaday awgeed ma fahmaysaa wax allaala wax macna ma sameeyo jiraar la qurxiyay waxa macna ma sameeyo weeraha quraankood ku qortaan maanta oo dhan dahab aad ku qorto wax allaala wax macna sameeynahay bal hadaad maanta oo dhan qasaayid akhridid ما ترى كل قصايد رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل ماله وط ها ايش معناها ماشي معنى سمينا سوا حلقة التقوى ها هنا ابو النبي صلى الله عليه وسلم هذا مركا لبداس اي سهلان الله يركا قلوينكينا في سيجس ka dhigtay waa taqaanaan electricity labada daraba istaabanaya waa minus iyo plus istaabashada istaabtaba waxa ka dhacaya jac ayaa ka dhacaya labaduba haday minus yihiin balan basraadna labaduba haday plus yihiin badaba shidmi gaariga markaad istaaraysid aad miftaxa ku rogaysid hadaanay laba danab istaaban jacda hor hadaanay dhaqaaqin halaal wuxuu gaarigaas ku dhaq intuu doono gaarigu la cruiser ha wuxuu doonaa gaari qaali ha ahaa waxyiga ilaahay cirka ka yimid iyo qalbigaagu haddaanay minus iyo plus ta isku noqonin oona istaabanin deedna xubnahaagu waana ka dubaaxinin oona ishaadu ka ilmaynin ilaahay ballan la geli subxaanahu wa tacaala
oonad gunta hoose adigu ka oranin ilaahay waa fahmi ilaahay waa fahmi way soo gaadhay baaqaas way soo gaadhay balan ya caadi waxaan galayaa inaan fuliyo adigu aanad oranin kadibna aanay laba arrimood iswaafaqin laba arrimood hadaan iswaafaqin ficilkaaga iyo dhaqankaaga iyo qowlkaaga iyo waxaad aaminsan haday iswaafaqi waayaan waxa allaala waxaad sheegaysaa waxba kama jiraan madmadoob Allah ku yaqaan fahamkaad ilaahay ka fahamtay dareenka laabtaada galay eetiraahid waxyiga ilaahay way kale waaya waxyiga ilaahay anu ila hadlaxaya anu ila hadlaxaya cid kale ma adiga shakhsiyan buu kula hadlaya waan fahmay ilaahu maxaad iga doonaysaa markaa caqiida toosan baan kaa doonayaa cidaan aan ahayn ha caabudin cibaadada cid kale ha igu larin cid kalena ha ii soo marin idaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun khalaas khalaas iimaankaaga ha toosnaado agtaada ha ku weynaado qiimaha agtaada ha ku lahaado sifooyinkayga iyo tilmaamahayga baro magacyadayda xafid tilmaamaha aan leeyahay aan u qalmo ogow amar markaan bixiyo hoggaansamow ha ila murmin ilaahay baa kula ha ila murmin ha ila murmin anna ilaah baan ahay adiguna addoon baa tahay addoonnimadii qaado addoonnimadu waa maxay samicnaa wa aطacnaa gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir maqalnay waxyigii alxamdu lilaah wa aطacnaa hoggaansanay ilaahay baa yidhi bashar baanu nahayo haddaanu hoggaansanno waanu sii siiban doonnaaye waxun baa naga dhicdhiciye gufraanaka bal saddexda la isdaba dhigeeg samicnaa maqalnay wa aطacnaa hoggaansanay laakiin da boqolkiiba boqol ma keeni kara waan yar sibiriiraxaniye gufraanaka taana ilaahu hayga iloobin haddaba anna intaan socdo waxun baa iga dhicdhiciye bashar baanu hoo kulley dembi waa i ag yaallaaye غفرانك ربنا وإليك المصير هذا القول أمة النبي محمد مانت صلى الله عليه وسلم ميل الله ميل أي جوكتو ويبدشي إنه وحي نري إله يو سيدا أنو دوني إنه دين تنوغا ديك أنه سيدا أنو دوني إنه دين تنوغا ديك ووامح إله وذقنا صورع زمن كوا إسبدلو ظروفي وأذقي شينه زمن كوا إسبدلو ظروفي وأذقي شينه زمن adag baan ilaahow nool nahay ilaahow adigu diinta annagu taadii ma wada qaadi karna ilaahow annaga saan u fahanay diinta ilaahow annaga taayada nool soo raacay imada nabi maxamed maanta xaalkooda wakaa waay mawduucan uga hadlaynaa markaa taskiyada nafsi maxay macna ka leedahay laabtaada oo daahirowda saddex wax baa la doonayaa laabtaada inay nadiif ka noqoto saddex wax laabtaada waa inay nadiif ka noqotaa waxbaan iyaba ku dardari doona haddii ilahay kow ashirk billaah ilahay ha u shariik yeelin ilahay ha u shariik yeelin kow laba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la rabaa inaad naftaadu daahir inay ka noqoto xasad xasadka sooma naqaano ya xasadka mise reer gebil ma yaqaanaan تعرفون الحسد الحسد إذا أحمل اسكو أقولانين أبو جهل نبي قال بحيه مقع أبو جهل أبو حكم بالو رجري إن كيسة عرضات حكم بالو رجري مركا أبو حكم با أي عربي أتقاني حد قذب كيسة يدل بكيسة يحضر الأبي كيسة أو يبو نبي قال بحيه أبو جهل نبي محمد أبو بحيه صلى الله عليه أبو جهل أبو جهل بو مالين قعان وغيار كالي بيوريح نكاني دغالك كل جرتا ميانو إن أديركينا هاي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن عبد مناف ميانو جلب يدا قريش كميدا أهين غير بني هاشم ميانو أهين هاوية تإنا كوا إن أديركينا أبو جهل وما ينسكر راعنو
waxaan ula dagaalanay inaka maxay ula dagaalamayna Abu Jahl dhageysta Abu Jahl bay war dhageysa buu jilibku nabigu ka dhashay sallallahu alayhi wasallam reer bani Hashim ah iyo jilibkan inagu ka dhalanay hadaynu reer Abu Jahl nahay waligeen iyo Alle tartan bay naga dhaxeeyay buu afka gibel way fahmaysaa Soomaa حسبي الله ونعم الوكيل وليجن waxay naga dhaxeeyay buu yiri tartan maalinteedii soo ciyaarsiyaanba nin baynu keenaynaku waa kuwii maalin qaatay siqaayat alhaaj wa imaarat almasjid alharam cid allaale cidii soo xajiday iyo soo cumraysata marti soorkooda iyo maamuuskiisa reer bani Hashim baa qaatay nabi maxamed awowgiiba ka masuula Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam xoolaha la qalayo martiqaadka wax walba reer bani Hashim baa qabay arab iyo jasiirada arab oo dhan baa u jirtay anigu intii ma korba si qada ay kaan qabsanaya waaya ahsantum waaya jazakumullah waxay yiraahdeen kayban marini arab oo dhan baa markay soo xajinayso isku sii sheegi jirtay reer bani Hashim baa martiqaadkeena qaba reerkan kale Abu Jahl ka dhashay baa leeyahay waxay yiraahdeen war waa kuwa ninkii naga dheereeyay xajkii nagala wareegay inagu maxaynu qaadanaa markaas yiraahdeen wagar waxaynu qaadanaynaa abaanduulaha ciidanka reer Quraysh Khalid ibn Walid iyo maad garaneen Khalid ibn Walid maad garaneen Khalid iyo Ikrima ibn Abu Jahl Khalid biyaanu taxaqanu hada Khalid oo reer bani Makhzum de laba jilib oo reer maalinta in keenaan banin baynu keenaa buu Abu Jahl maanta reer bani Hashim waxayna yiraahdeen buu yiri samadaana lagala hadlaa oo waana loo waxyoodaaye halkeen uga keenaa buu yimi samada lagala hadlaa wallahi ba ku dhaartay maanta wixii ka dambeeyay buu dagaal baa naga dhaxeeyay hasadan min cindi anfusihim Abu Jahl wuxuu ku gaaloobay أو نبي محمد كل نعي نبي محمد بالقرآن لو سود داعي معه صلى الله عليه وسلم أبو جهل الدين تاكل الدجالمي محمد صلى الله عليه وسلم تلكي ما يقدر يرينا إياه أو نبي ما يقدر كحينا صح قاضا ما يؤيد نفتح الله طاهرية محل طاهرين يا شرك محل طاهرين يا حسد ولا سو هاجري مدينة ليمتي نبي ولا سو إريي تلكي بسو إريي صلى الله عليه وسلم انتو أتغيبوا أروري بكير الماضي ريا وردايا دين الله وضع خلوا بيني وبين الناس مدحوينتي iyo guurtii hadaad diideen buu yiri idaaya dadkaas Allah hadlaya caamadaas Allah hadlaya idaaya nabad geliyo may wala dagaalamina Muhammad sallallahu alayhi wasallam inay dilaan bay heshiis ku qaadeen inay dilaan ayay ku go'aansadeen habeen madoobo nabigu Madiina ka baxay Makka ka baxay sallallahu alayhi wasallam Madiina ugu tagay sallallahu alayhi wasallam qoloyin cusub oo yahuud la yiraahdo dadkan uu nabigu u qaxayna reer abtigii buu ahaa reer abtiyaashii bay ahaayeen ansaarta aad maqashaan waa ayo waa nabi maxamed abtiyaashii way sallallahu alayhi wasallam reer bani najjar aaminatu bint wahb nabi maxamed hooyadii reer bani najjar bay ahayd ansaar baa maqashay inaka abtiga u ahaydeen ma halkan lagu hiifaya lagu dulaynayaa deen bay anaga dhoo kale nabi maxamed sallallahu maxaa ku dhigay كفاني جري مكان النبي وابتياشي وكفاني صلى الله عليه وسلم أكو ذاتك يقدر بوجري ما انتهى العدل لها يقول بدي بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وقدري وذيك يقول هنا يهود برجع سولو رجري حيي بن أخطب إنن ودلي أو صفية لو رجري أيون النبي محمد قرسدي أو مسلم صلى الله عليه وسلم صفية إنه شاكينا سمركا شاكينا صوصوتا صفية بنت حيي بن أخطب وحي تري آبهاي حيي يا أذيركي كعب بن أشرف
markuu adeerkay noo yimaado Kacb ibn Ashraf markuu noo yimaado guriga wuu igu soo ordi jiro wuu i qaban jiro waa i dhukan jiray buu adeerkay aad buu i jeclaa buu yiri ayay tiri maalintii Madiina nabigu soo haajiray sallallahu alayhi wasallam loo baxay reer Madiina oo dhan ay baxeen ay heestii nabiga lagu soo dhaweeyay la qaaday طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع النبي قال وسول دوي صلى الله عليه وسلم أو بحي عيدي مدينة كما هارين يهودنا تذكي بحي براعين كالكعين ومي راعين وحي لها يبرشيت كأيغا كتاب كينا صدا قران تلمامها النبي آخر زمن كصوبح الدونة ميهي مسمعها شيء دي كده وري مكان النبي صلى الله عليه وسلم waxay tiri hooyadii Safiya markii guriga ay ku soo noqdeen aabahay iyo Kacab ayaan adeerkay Kacab ku orday sidaan awalba ugu ordi jiray way akbaray bay tiri soo gafuurka taagayo caraysan isaga iyo aabahay ba guriga isku soo xiray gurigii ba dhigta saaray bay tiri qolkii ba dhigta saaray maxay ku hadlayaan Kacab ibn Ashraf baa yiri hooyayow ninku ninkii ma yahay ninku ninkii ma yahay ninkii kitaabkeena ku qornaa tilmaamihii khaatamul anbiya ila ahlu kitaabaynu nahay ninku ninkii ma yahay hooyayii baa yiri ha ninku waa ninkii buu yiri maxaynu yeelnaa buu yiri hadda ninku آخر الزمان كي النبي لكن هو عرب baa laga doortay iyaguna waxay islaahayeen yahuud buu noqon doonaa ninku yahuudi ayuu noqon doonaayo adduunka oo dhan bay ku qabsan doonaan bay islaahayeen warkaasuu yiri subhaanaka ya rab maxaynu yeelnaa xiyay baa yiri innaha al'adaawa raaci mayna ninka واتينو راعنا مع ربينو اوغلانا اني انو تاليسو راعي ميدا الهي با قرانka ku sheegay gaalnimada ay gaaloobeeni wax kale inaanay ahayn hasadan min indi anfusihim inay tahay xasuuqa nafteenu ka taahinayna hasad waa maxay in yari dhageysta alhasad waxa adag weey ummad walba waxa laga hadlaa waxa ku badan baa laga hadlaa nabi walba la diri jiray waxa loo diri jiray ummadda uu la hadlayo waxa dhexdeeda yaala laga hadli jiray hasadku waa maxay hasadku waxa weey nicmad ilaahay ku galaystay qof mu'min ah oo garanaysid deedna aad dhibsatid nicmada oo aad tiraahid ana ka mudan isaga maxaa loo siiyay ana ka mudan isaga maxaa loo siiyay waxa sidii xaraam maxaa la doonayaa inaad tiraahid ilaahu inta aad siisay walaalkay ilaahu isaga horta u ziyaadi anna waan iskaga baahanahay anna inta soo kale isii anna asiga yar baahano waa yar jactansanahay aniga ay dhibtay ilaahayo adeegada taas la doonayaa had dhibsan wuxuu isagu helay isagu helay maxad leedahay ma sha Allah اللهم اكرم الهه درجي خلاص منصب مقام حل دولة الدون قبض وحبوها الهي سي حنحن اذيو ها محد لهدحي اللهم زده إله خزنده وي بوخدايه او كردي isaga ba ka soo hadhay adna yar ba ku hadhay soo ma adna way iga jajaban tahay ila wadiga taas oo kale isiyo iga badi waliba dheh hada fiiri taa waa la ogol yahay taas غبطه ayaa la yiraahdaa hasadkii man shirki naftaada ka taahirinaysa hasad maxaa ka nafta laga taahirinaya al-ghafla wax la yiraahdo al-ghafla waa maxay waa doohanaanta af Soomaali qofku inuu doohan yahay tusaale yar maalin dhow nin baa waxay baaqeer la isku dirdiro WhatsApp-ka nin baa ii soo diray maalin dhow baaqeer buu ii soo diray adam kasboo 10 maalmood baa laga joogaa aad ba ninka yar wax fariinta yar uu soo diray aad ba ii saameysay muxuu leeyahay wuxuu igu yiri ninkaasi fariintaas waxaad eegtaa buu yiri almisow ilaahay inta uu nicmad ilaahay uu ku siiyay hoos u eeg deedna waxaad is weydiisaa
nicmadaha iyo galladaha ilaahay uu ku siiyey ma ka mahadcelisay alxamdulilah ma tiri arag buu ilaahay ku siiyey arag alxamdulilah ma ka tiri maqal buu ilaahay ku siiyey alxamdulilah ma tiri maaniya maskaxa buu ilaahay ku siiyey alxamdulilah ma tiri ubad buu ilaahay ku siiyey alxamdulilah ma tiri ooriyo suuban buu ilaahay ku siiyey alxamdulilah ma tiri salaadihii baad oogaysaa alxamdulilah ma tiri waxaad cunaysa waan calaalinaysaa iyo qandhuuftii maad waayin dad buu ilaahay bilaa qandhuuf ka dhigay wax allaala waxay ku calaleen aan haynin biyo ay ku liqaan mooyaane maalin keliya ma tiri qandhuuftaas alxamdulilah ilaahay jiciye goos aad ku ridiqdid buu ilaahay ku siiyey naab aad ku goysa ayuu ilaahay ku siiyey kullu hada min fadli illaahi wa qudratihi hal shakarta allah alxamdulilah maalin ma tiri anigii baan dib u naxay markaasaan intaa u jawaabaa ku dhimay الحمد لله دوبان موياني بدو دوبان موياني هذا لكن تن تفاريق ده أرتن ما هي ما أقول تفاريق ده ما هي ما وقت بدو دوبان ده الحمد لله هذا واسكين هذا لكن نعمة والبه ها مركا صار لما كتبان كي ما يقدم بأركاسي وسو زيادة مركا الله لو وسو أركبه الحمد لله مركا صار يا عمامته ما بترين كريسيت مركا صار وحي وسو نعضي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حتى اسكو دايدان قلدوه الهي اذ كو قلدا انا تريسان تريبا كريميسان وحدنا يغو سو دحداي ايات كلون معناهيدي دب فهمي قدب عمر دير كدب وما بكم من نعمه فمن الله والله هذا بالنا ساني ونعمه الله سبحانه وتعالى وحن دب وحسوستي ابا الله يرحمه يقولوا يربروا هره أستغفر الله لا أترى هذا أي أستغفر الله أباها ما فهمي فسوف يقول الحمد لله لا أترى هذا أي الحمد لله أباها ضمان بميس ما فهمي واحد أفهم كلام فرط سنة كذب الحمد لله ياكو وافجي الحمد لله نتراهد سو إلهي ما إلهي وافجي الحمد لله مين دمانا سامركا لو دمانا سامركا أستغفر الله سو هذا يجاب وح الله وح عجيب هيد وإذا كتوكد وك شيخ يمكن تكيه مغرب السلام عليكم السلام النقصان marka sida loo salaamo naqsada salaada laga baxo weedha koowaad aan raahna waa maxay maxaan raahna astaghfirullah soomaha hada salaada aynu ka baxnay maxaa astaghfirullah keenay salaada aynu ka baxnay soomaha إلهي بين هرجونا سوما جل أجوه سبحان ربك أستغفر الله محاكين سوما الحمد لله إلا هذا ما يحي حق عقلي قد الحمد لله إلهي صلاة إنه وافجي حق عقلي قد الحمد لله جماعي إنه قلتك لكن سلام عليكم السلام حات أفضل كل فتي ستة جار أستغفر الله محل قد جينا إلهي صلاة أنت كذي وما قلنتين هذه وينانت وما قلنتين سيدي لربينا وما تكنن درجة دينا لما إيمان كل وحوم بقى نسقامه أستغفر الله من ذاك النقصان في فضلك يا ذا الجلال والإكرام إله هذا مهبة به أستغفر الله حتى في الصلاة سلام عليكم السلام أستغفر الله وعليه أستغفر الله من دمانس مركع من دمانس شرك لابت هذا كالطاهري حسد لابت هذا كالطاهري الغفلة الدوهناني نعمد إليها كالدوهناني قرن ميسد قور عاد بحي قرن ميسد قور لقو قباني قرن ميسد قور عافمات كأد كتك مقرن ميسد وحاصل وحكو إيمانا يا غفلة أيوم حيثون وحكو إيمانا أما هذه لغا ربا إن هذه يجر إنا تفوجك ناتد أو أد سوجدد إنا أرنتني مهم تاهي لابتو ولا طاهرية أو حماها لغا طاهرية أمراض القلوب علماء ذو الأحضان cudurrada ku dhaca laabta bay yiraahdaan in la taahiriyo qofku had iyo jeer naftiisa mutanabbih inuu ahaado inay qiimo leedahay bal waxaad eegtaan suurada washamsi waduhaaha bal bilowgeeda akhriya washamsi samuud xafidsanin bal washamsi waduhaaha waxaad eegtaan bal koob iyo 10 jeer ilaahay dhaartay bal eega aayada suurada koob iyo 10 jeer oo ilaahay u dhaartay koob iyo 10 jeer jaliilka maxaa ka dhaariyay إلى تريا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها كوب يتمنى عيون دار مطهي جواب القسم كما محي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دس كوب يتمنى دار بو إلهي كل دارتي إنو ليباني قفك لابتيس طاهرية إنو هوغي قفك لابتيس طاهرين وايا كوب يتمنى جرب إلهي كل دارتي سبحانه وتعالى جليل كم حاجة دارية مقع أري وين هبدان وهين بحجي لك دارية مو يلاحظوا قد أفلح من زكاها والشمس والضحاها قد أفلح من زكاها توس مو يلاحظوا ما الذي يجعل الرحمن كما حكى يالي يكون كلف عز جاهه كوب يتمجد نارته إلهي سبحانه لأنه وحي نؤجي هاي نفتنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إلهي بقى إنه أج وح إنك قلبي أذك أو إنك مدح أذك أو إنك مرم بدن أو إنك ضاد بك إنه مجر إلهي بقى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا على مرم بدن أبو إلهي سبحانه وتعالى إنسانك وحن إنسان كلا يلاهنا مرم بدن أبو إلهي سبحانه وتعالى هلوع بإلهي إنه شيء خلق الإنسان هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوع ما حي إساق قراك إنه شيء نفتاس إلهي إنه أبو سبحانه وتعالى هدي مركان الليل وايو سجوكته وعن أسكو ويديا شنطة صلاة هذا حد يمالن والبجوجا ما أسبوع مر لقديكو بلاك صلوات كبار دليلي شنطة سيد اللوقا يبيك حلقة هردة وقتش عشاي أو ساعة الفجر كي حلقة هردة وقتش عشاي أو قذيسي كدب عصر كي يرى حلقة البردين وقتش عشاي سوق وتكو ساجك آد جماعة بدي نفتن با حديث هاللو قبن وايو أو لحكمين وايو أو وحا أي جعشاي لقا قبن وايو نفتن وي سيبنسا هدي سيبتنا وي دركسا هدي دركتنا وي أدكتها إن سو عليو